Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلع Somali TV subscribe please 2017kii ku beegneed 2 saac ee barhabeenimo waxaan soo xasuustay gaarigayga inuu gaas la'aan yahay waxaana qorayay waraaqada jecel ugu dambeyn waalidiintaydan wacay hooyo seetiin xaaladiina ka warama waan soo socdaa ee meel dalxiisa yara aadaya meesha gaaskana waxay ii jirtay muddo 10 daqiiqo ah furiyaan soo qaatay waana soo baxay muddo 10 daqiiqo markaa gaariga wadaya waxaa soo gaaray meeshii gas stationkii gaariga shidaalan ku shubtay waxaa dareemay 2 nin inay dhinacaas taagan yihiin shaki ay galay waxaa isri talo maxay damacsan yihiin anigana yaab waa fiiriyey faraha ka qaaday haddaba waxaa soo xasuustay saaxiibkii inaa alaab gaarigina waa xirtay anigoo yaabanoo isla talow kuwan maxay kaa rabaan caawa bis meeshaasaan galay waxaan soo qaatay kribis iyo waxyaalo kale ugu dambeyn lacagtii waan dhiibay haddaba nimankii waa kuwaanaa gudahii soo galeen kana base yuulu lahaa da'doodana 20 sana ku qiyaasaya waryaada xabadiina wateen waryaa gacmaha kor u taaga dhaqsada dhulkana jeje walaal waan ku baryaa waxba ay dhaawicin hooyadeyna waa xanuunsan tahay waryaa sharab waryaa aqoon ma noo leedahay yah nimankaana waxay rabeen meesha inay dhacaan sidoo kale dad badana dhaawac badan ay u geysteen ugu dambeyn anigana wadnaha zaa'id u ii shaqaynayay timuu isoo jiida naheedha soo kac adaan kuu baahannahay walaal iga qalaya maxaan sameeyey haddee markaasay yidhaahdeen adaa u baahannaa ciddiina lacag ma leedahay anigana ninkan ciila iga hayay sababtoo ah noloshayda meesha ugu dambaysay ahayd dhegtuuna xabad iga hay wuxuu igu yidhi quruxleyda waxa ma dhacaya isdeji kii kalena wuxuu dhahay waryaada waraa duqiyo timaa dambaskale soo bixi lacagta dhan waraa ma iga qalaysid maya waxaas ma jira waryaa odayo maskaxdaadoo faniinaysaa derbiyada laga soo fufujin doonaa dhaqso lacagta soo bixi duqaana wuxuu rabay inuu badbaadiyo da'diisa waxaan ku qiyaasay 60 sano haddaba ugu dambeyntii lacagtii uu soo bixiyey waryaa waa $5,000 wax kale ma hayno waraa lacagta soo bixi hooyada aabbaa ma lahane gabadhaanaa dilaynaa haddii kale anigana wadnaha zaa'id ii shaqaynayay waxaa sameeyo garan waana oynay ugu dambeyn duqi lacagtii markii laga qaaday boorsaduu ku xaraystay ninkan duqina meeshuu ku fiiray aniga yaab haddaba ninkan wuxuu maqlay booliiskoo soo socda duqina way fiireen gabadhina way kala tuureen calooshaa dhaawac iga gaaray alla kuwan xaasidsanaa ayakoo sii baxaayo ayaa booliiska qabtay waryaada isdhiiba waddanka sharciga yaala maxaa noo malayseen waxba basada yuul kale waa la qabtay nimankii ilaahay mahadiis haddiiba la qabto duqiyaa arkoo dhaawac fara badan loo geystay adeer seetaa xaaladda ka waran maxaa ku gaaray duqaana indhihiisa madoway sii noqonayeen alla gabadhayda si xun bay ii dileen ookiyaalihiina waa iga jaba wallaah adeer haddaba duqi waayeelka ahaa wuxuu igu yidhi ishaa dhaawac iga gaartay si fiican wax ugama arko qof walba ma wanaagsan yahay saytiin askarigaana wuxuu ahaa saaxiibka aabahey wuu i gartay gabadhayda zahra see tahay meeshaana maxaa ku keenay alla waa lisoo weeraray waxaa sameeyana ma aqaanay may dhib male hadda calooshaa dhaawac kaa gaara filaa cusbitaal ma u baahantay in lagu geeyo haddaba markii tuugada meeshan soo weerarayeen ninkaana booliiska wacay 911 ka soo gaaruu yidhi sidaasay u imaadeen saacaddan lama arki lahayn ninkaana wuxuu yidhi aabbaha si fiican aan u aqaanaa saaxiibaan nahay gabadhaana iska oynaysay
xaaladii ku xumaatay waxay tiri nolosheeda intaa noolaa waxaan oo kale maana arkin banaanka markaa u soo baxnay waxaa aragnay gaarigii nimanka wateen in la baarbaaray duqina waa la qaaday oo cusbitaala la geeyey gabadhaydii insha allah wax walba hagaagaya niyadda khayr u sheeg aniga xaafadda le inaa aada u baahana adeer okay xaafadda waa aadaysaa qisadana waa qiso xanuun badan oo dhacday asxaabi like sheekadan waxay ugu dhacday 5 sano ka hor waxaana la yiraahdaa Cabdi haddaba aniga waxaan ka shaqayn jiray hodeel ama maqaayad waxaa jirta gabar la yiraahdo Axlaam oo qurux badan maqaayadda waa la soo buuxin jiray way gabadhan aad loo xiiseynayay waryaa canjeerada sii hilib kalaan kala aleyso waryaa gabadha oo dharka ka qaad ugu dambeyn waxaa jiro nin macaamiisha ka mida oo mar walba aan weydiin jiray oo dharka mudana maxaan ku keenaa pizza hayna wax walba waryaa pizzadaadan ma naqaanay aawa Axlaam gabadhaas u baahanaay war Axlaam hooyadaaba mudana mudana waa kana qaxwiya jacleed waa ogtahay hadee weytaradan kale inaan wax ka dalban sama maxaa ku nacda laakiin ninkaana maalin walba u imaan jira maqaayadda maantana wuxuu dalbaday bariis iyo hilib shiilan seeta mudana xaalad ka waran na Axlaamay nambarkaada u baahanay ma isiisid warmaandhociyo timaa dhuxusha leh maxaa noo malaysaa waryaa gabadhaadii noo haysata anag wax meesha ka cuna ma bax bis maalintii dambe haddana soo noqday wuxuu yiri Axlaamay waxaan rabaa inaan ku guursado dee waa kaa helay maxaa ii yeelaysaa markaasi ku tiri shaqaalahan kugu dacweynaa shaqaalaha u soo sheegay way ugu qoslay nawa ogaa ninkaas wax kale u damacsanaa hodelkan wuxuu u imaadaa adibis inuu ku fiirsado hadda maxaa xala maamulahan ku dacweynayna aniga uma baahna xiriir waxaas in ay yeesho hal bil kadib shaqadii waa la ii bedelay oo habeenaa shaqayn jira maalinaa ka dhigtay ninkaasaan nacay dabeecadihiisa anigii wiilkan ugu dambeyn waxaan shaqayn jiray saacaddu markay ku beegan tahay 12 subaxnimo ilaa maqribkii 12keedii habeenkii waa sii cashayn jirnay waana bixi jirnay shaqaalaha mid ka mid ah wuxuu arkay nin maalin walba gaariga meesha la taagan wuxuuna ahaa ninkii gabadhan dalbanayay oo dhihi jiray nambarkaada isii warkanna muxuu ahaa ma quusto miya badda ma waantooda la yiri baal hoosana aamil malay warheedha pizzadaada waa diyaar 10 daqiiqo kadib waa helaysaa ee dulqaadanaya waa ku siday habeenkaasna waxaaba arkaba gabadhii Axlaam ahayd saacaduna waxay ku beegneed 3 saac oo habeenimo aniga shakiya igala waxaa isir gabadha intay u socotaa gadaala soo daba socday anigana intaas waxaa rabay inaan badbaadiyo gaarigaygan soo dhaxgalay waxaaba arkaba gaarigii hore oo meesha taagnaan jiro buluuga inuu soo daba galay alla gabadhan la afduuban rabaa miyaa talo caawo bal aan badbaadiyo haddaba fariina u qoray waxaan ku iri naheedha Axlaamay ninaa ku soo daba socda is ilaali bal gabadhaana way ooyday waxay tiri warheedha caawaada ay badbaadisay walaa aada u faraxsanaa la'aantaana waxa ma ahaan leen laabtii gelisay habeenka wixii ka dambeeyay Axlaam shaqadii wuxuu bedelatay maalin wayna ku faraxsaneed waxayna tiri abaalkaada ma gudi karaniyo shaqadaasna waxay tiri mar dhowna ka fariisan rabaa asxaabay like saara waana ku mahadsantiin daawashadiina Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down